بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدونك لبدا أقل xildhibaanada howlwadeenada baarlamaanka bahda saxaafadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee munaasabadan kala socda daafaha dunida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi mudanayaal iyo marwooyin wadayaasha sharafta leh, maanta waxaan hortiina u soo istaagay inaan soo bandhigo hadaljeedinta musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, marka hore ii ogolaada inaan wax yar ka iraahdo sooyaalka taariikheed iyo waxqabad ee 30 sano ee la soo dhaafay. waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhashay degmada Mustaxiil sanadkii 1968. waxbarashadeeda hoose dhexe iyo sare waxaan ku soo qaatay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halka waxbarashadeeda heerka jaamacadeed aan ku soo qaatay dalka Yaman. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, burburkii dowladdii dhexe kadib waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee doorka muhiimka ah ka soo qaatay samata bixinta iyo badbaadinta kumanaan kun ee Soomaaliyeed oo ku tabaaloobay gaajadii iyo abaarihii isdaba joogga ahaa ee dalka ka dhacayay xilliyadii burburka, dowlad la'aanta iyo dagaalada sokeeye. waxaan sidoo kale ka mid ahaa aqoon-yahankii Soomaaliyeed ee kaalinta weyn ka soo qaatay dib u soo noolaynta hannaankii waxbarasho ee dalka burburkii kadib, oo isugu jira dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarasho ee dalka. waxaan idabada u aasnay soona hogaamiyey dalladda waxbarashada ee FBNS oo ahayd dalladdii waxbarasho ee ugu horreysay dalka si ay u buuxiso kaalintii maqnayd ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. dalladaas oo ay maanta dugsiyadeeda dhigtaan kana faa'iidaystaan in ku dhow 1 milyan oo arday Soomaaliyeed, halka 100 kun oo kalena ay ka qalin jibiyeen. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaa hubaal ah in hogaamiyaal badan oo ka soo qalin jibiyey hannaankii waxbarasho ee aan wax ka soo aasaasay ay maanta hor fadhiyaan ayagoo ah mudanayaal matalaya shacabka Soomaaliya labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, halka qaar kale oo badanna ay door hogaamineed ka qaataan hay-adaha kala duwan ee dawliga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, marka laga soo tago shaqooyinkii arrimo bulsho ee muggal ahaa ee aan wax ka soo xusay, waxaan sidoo kale qayb ka ahaa howlihii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee dagaalada ba'ani dhex mareen iyo dadaaladii dib u dhiska iyo dib u yagaleelidda dowladdii ugu horreysay burburkii kadib. haddaba haddii aan wax ka xuso waxqabadkaygii, waxaa ka mid ahaa aasaasidda golayaal dib u heshiisiineed oo waday dadaallo lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed. dadaaladaasi oo markii dambe u gudbay shirkii dib u heshiisiinta Carta ee lagu soo dhisay dowladdii Jamhuuriyadda saddexaad, anigoo ka mid ahaa 47 qofood ee ugu horreeyey ee lagu aasaasay shirweynaha Carta. waxaan xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ah heerarkeeda kala duwan, anigoo soo qabtay xilal wasiirnimo iyo xil madaxweyne dowlad goboleed. mudanayaal iyo marwooyin, howlahaasi kala duwan ee aan soo qabtay oo isugu jira kuwo bulsho iyo kuwo siyaasadeed waxay khibrad igu filan ii siiyeen in aan ogaal u noqdo dhibaatooyinka dowladnimo ee dowladdeena haysta iyo xalka gaarideeda. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaa igu dhiirigeliyey inaan maanta hortiina soo istaago anigoo musharax u ah xilka madaxweynaha kadib markii aan arkay: 1. argagixisadii iyo kooxihii nabaddiidka ahaa oo aan weli laga adkaanin xalna loo heli. 2. dastuurkii dalka oo aan la dhammaystirin. 3. mushkiladdii Somalilan oo aan xal waara laga gaarin. 4. maqaamkii caasimadda iyo matalaaddii gobolka Banaadir oo heshiisii is-afgarad midna laga gaarin. 5. dimuqraadiyiintii iyo hannaankii xisbiyada badnaa oo aan weli dalka laga hirgelin. 6. garsoorkii iyo maxkamaddii dastuuriga ah ee dalka oo aan weli la dhammaystirin. 7. adeegyadii bulshadeenna u baahneed oo aan weli laga haqabtirin. haddaba
mudanayaal waxaa sharaf ii ah in aan idiin soo bandhigo barnaamijkayga siyaasadeed. mabaadi'da iyo qiyamka aasaasiga u ah barnaamijkayga siyaasadeed waa abuurista hannaan dawladeed oo loo dhan yahay, nabad iyo xasilooni siyaasadeed, cadaalad iyo sinaan, nabadeyn iyo dib u heshiisiin dhab ah, sarraynta sharciga, ixtiraamka sharafta, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, tiirarka saldhigga u ah ka gungaaridda aragtidayda siyaasadeed ee dawlad dhiska Soomaaliya 4 sano ee soo socota oo aan ballan qaadaya waxay kala yihiin: 1 xukunka iyo dawlad dhiska anigoo ka duulaya khibradda iyo xoogaalnimada siyaasadeed aan u leeyahay sababaha dhaliyey wada shaqayn la'aanta ka dhaxaysa dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah, taasoo ragaadisay howlihii horutabinta u lahaa hannaanka federaaleynta dalka iyo dawlad dhiska. waxaan horseedi doonaa dhammaystirka federaaleynta dalka, abuurista hannaan iyo siyaasad deggan oo horseedi karta xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn buuxda oo dhex marta labada heer ee dawladeed. waxaan u istaagi doonaa dhammaystirka maqaamka Muqdisho iyo matalaadda gobolka Banaadir. waxaan u howlgeli doonaa xalka gaarista qadiyadda Somalilan anigoo furaya wada hadallo dhab ah oo lala galo walaalaha Somalilan, kuwaas oo horseedi doona midnimo iyo wadajir ay raalli ka wada yihiin labada dhinac. waxaan ballan qaadayaa inaan muddo 2 sano gudahood ah ku dhammaystirayo dastuurka, iyadoo laga ambaqaadayo talooyinka ay soo jeediyeen shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. waxaan gacan weyn ku siin doonaa walayaasha sharci dejinta, ansixinta iyo dhaqangelinta dastuurka. waxaan xoojin doonaa kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dawladdooda anigoo ka shaqaynaya helista hannaan dawladeed ku dhisan hufnaan iyo isla xisaabtan. waxaan ballan qaadayaa inaan dalka gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan hannaanka xisbiyada badan, kuna dhacda muddo ku astaysan dastuurka, anigoo arrintaasi iskaashi iyo wada shaqayn kala yeelan doona dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. 2 amniga iyo sarraynta sharciga. mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, si looga baxo amni darrada baahsan ee dalkeenna ka jirtay muddada dheer, meeshana looga saaro dhibaatooyinka baaxadda leh ee kooxaha argagixisada iyo nabaddiidka ay dalka ku hayaan, waxaan u istaagi doonaa dhisidda ciidan mug leh iyo muuqaal qaran leh, kuwaas oo laga soo xulayo dhammaan deegaanada iyo gobollada dalka. ciidamadaasi oo hanan kara rabitaanka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed, si buuxdana oola wareegi kara mas'uuliyadda amni ee dalka. waxaana dhismaha ciidankaasi lagu salaynayaa heshiiskii amni ee magaalada Baydhabo. dejinta iyo hirgelinta qorshe qaran oo horseedaya in dalka lagaga xoreeyo argagixisada iyo kooxaha nabaddiidka ah muddo kooban gudahood, ayadoo si xooggan oo baahsan loo wiiqayo awooddooda dagaal, sirdoon iyo dhaqaale intaba. xididda u siibidda afkaarta argagixiso ee ku dhisan xagjirnimada diineed, ayadoo loo marayo abuurista barnaamijyo iyo qorshayaal wacyigelineed ee ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. dhammaystirka dhismaha hannaanka iyo heerarka kala duwan ee garsoorka dalka, iyo dejinta qorshe lagu dhaqangelinayo helista garsoor iyo hannaan cadaaladeed oo hufan, kaas oo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan hay-adahooda garsoorka. dhammaystirka dhismaha golaha adeega garsoorka si loo helo garsoor hufan oo madax bannaan. dejinta dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka, si meesha looga saaro isqabqabsiga hay-adaha dawliga ah heerarkooda kala duwan, ayagoo lagu aasaasaya maxkamaddaasi muddo 2 sano gudahooda. abuurista hannaan looga hortago musuqmaasuqa cuuryaamiyey hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyadoo la tayeynayo lana xoojinayo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. 3 kobcinta dhaqaalaha dalka. mudanayaal iyo marwooyin,
xildhibaanada sharafta leh anigoo ka duulaya ahmiyadda weyn oo ay leedahay kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka qorshahayga iyo barnaamijkayga dhaqaale wuxuu ku diiradda saarayaa arrimaha soo socda dejinta siyaasado iyo qorshayaal lagu abuurayo 100,000 oo shaqo ee dhinacyada dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo yareeyo faqriga iyo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta sarena loogu qaado nolosha dadka iyo kobaca dhaqaalaha ee qoysaska danyarta ee Soomaaliya dhiirigelinta wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka kala duwan ee dalka sida xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo kheyraadka dabiiciga ah horumarinta siyaasado iyo xeerar kor loogu qaadayo fursadaha dhiirigelinaya maalgashiga shaqo abuurka iyo hal abuurka si loo horumariyo ganacsiga dalka soo daabicidda lacagta shilin Soomaaliga ah oo qiimo iyo sharciyad dhammaystiran leh si meesha looga saaro adeegsiga iyo isticmaalka lacagaha qalaad horumarinta iyo tayeynta hanaanka iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka si ay kalsooni buuxda ugu helaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maaliyadeed ee dunida dadejinta soo saarista shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee kala duwan ee dalka si dadka Soomaaliyeed ay uga qabeelaan kheyraadka dalkooda dhiirigelinta iyo hirgelinta heshiiska wadaagga dakhliga kheyraadka dabiiciga ah si ay uga faa'iideystaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaarsiinta hiigsiga yoolalka deyn cafinta dalka ayadoo loo howlgalayo shuruudaha iyo hanaanka lagama maarmaanka u ah deyn cafinta si dalku u gaaro isku filnaansho dhaqaale dhiirigelinta maalgashiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo helo adeegyo kala duwan oo tayeysan ay bulshaduna u baahan tahay iyo shaqo abuur dhab ah 4 adeegyada bulsho mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh anigoo ogsoon baahida loo qabo degdeg u helidda adeegyo kala duwan ee bulshadu u baahan tahay waxaan xoogga saari doonaa 1 baahinta iyo tayeynta kaabayaasha waxbarashada dalka ayadoo loo howlgelayo lana horumarinayo manhaj qaran oo la falgelaya dhaqanka suuban ee ummadeenna iyo midkeena kan diinteenna kaasoo la jaan qaadi kara baahiyada shaqo tababar iyo hal abuur ee qarniga 21aad dhiirigelinta in dadkeenu yeeshaan xirfadaha aqooneed qorshadaha sare u qaadista qoondada miisaaniyadda waxbarashada ee dalka ayadoo la gaarsiin doono ugu yaraan 8% baahinta iyo tayeenta xarumaha caafimaad ee dalka si bulshada looga helo adeeg caafimaad oo bilaash ah tayeenta iyo baahinta iyo baabi'inta cudurrada faafa 5 siyaasadda arrimaha dibadda waxaad la wada socotaan in xilliyadii la soo dhaafay uu gaabis ku jiray siyaasaddeena arrimo dibadeed taasoo ina dhaxal siisay in dalkeennu yeelan waayo saaxiibo joogto ah oo had iyo jeer garab iyo gaashaan u ah haddaba siyaasadda arrimaha dibadda siyaasaddeeda waxay ku salaysnaan doontaa ilaalinta madaxbannaanida dhuleedbadeed iyo cireed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ixtiraamka sinaanta iyo madaxbannaanida dawladaha siyaasad dhexdhexaad ah oo ku dhisan in wixii khilaafa lagu xalliyo wada hadal iyo wada xaajood mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh runtii iyo gabagabadii waxaan hortiina ka ballan qaadayaa haddii aad i doorataan inaan dhowro ilaaliyana dastuurka iyo shuruucda dalka kala duwan ee dalka anigoo ugu turaya dalka wax kasta oo gelin kara qalalaaso siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni inaan dhiso ummad midaysan oo dib ugu heshiisa wixii soo maray si ay u samaysato mustaqbal wanaagsan guntii iyo gabagabadii mudanayaal iyo marwooyin waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in aad isiisaan iguna aamintaan codkiinna qaaliga ah ina doorataan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga
wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.